taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya guutooda waa Yuusuf Raage oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay guulaha ciidanku ka gaareen la dagaalanka argagixisada tirakoobka bixinta xuquuqda iyo mushaharaadka ciidamada dawladda Soomaaliya. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa soo hadal qaaday gadood ay Muqdisho ka sameeyeen ciidan ka tirsan xoogga dalka oo mushahar la'aan ka cabanaya. Waxa uu tilmaamay in ciidamada qalabka sida ay bil walba mushaharkooda qaataan marka laga reebo askar ka hartay tirakoobka markii qaybaha ay ka tirsan yihiin la diiwaan gelinayay iyo kuwa ay khaldameen tirooyinka lacag dirista ee nidaamka elektarooniga. waxaan arkay marka ciidamo waxa mamnuuc ka ah ciidanku inay ama gadoodaan ama ay muujiyaan muxuu ahay sheegay qaab gadood inay sameeyaan waa wax meel ka dhac ku ah ciidanka. qofka marka wax ka qaldan yihiin ama shakhsiyaadka wax ka qaldan yihiin waxay xaq u leeyihiin sida normalka ciidanka aheeday inay raboorki galaan colalka laga xukumo iyo taliyaasha colalka xukumo ay raboorkii iyo cabashooyinka ay qabaan u gudbiyaan taliyaasha colalkuna ay taliska u soo gudbiyaan sida haddaba la sameeyay haddana aan shaqadooda ku guda jirno. qof walba ee ay xuquuqdeeda ay maqanta oo wali aan waxelin qaladkaas yarka ahaa jira qaladkaas yarkaana waa la saxa. waxaan rabaa marka inaan u sheego waxaa keena runtii mar haddii waxa laga shaqeynayo ay system yihiin waxbaa qaldamaya waxbaa qarrimaaya waxaa jira dad yaryar oo colalka ka kala tirtirsan oo ay wax ka halaabeen sidii ama ha noqoto waqtigii systemku ay colal ku maraayeen qof colka ka maqnaa oo goobtii colka uu markaa deganaa ka maqnaa ama ha noqoto muxuu ahay dad ay ka gubteen farihii ama wax ka qaldameen systemka ay maraayeen ay wax ka qaldameen. taliyuhu wuxuu sheegay in aan la aqbalayn in lagu dhaqmo wax ka baxsan xeyndaabka sharciga nidaamka iyo anshaxa oo ay ciidamadu cabashadooda u soo gudbiyaan qaybaha ay ka tirsan yihiin kadibna lala soo wadaago saraakiisha si xal loogu helo. waxaa qasab ah qof walba ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan inay raacdo muxuu ahay sheegay xeerarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ilaaliso nidaamka dishibiliinka inay ilaaliso kala dambeynta iyo ismaqalka ciidanka. taas ayaan waxaan ku heli karnaa ciidan wanaagsan taas ayaan waxaan ku gaari karnaa hadafka iyo himilada aan leenahay. sareeya guutooda waa Yuusuf Raage ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalku ay dhiig joojin u noqdeen shacabka Soomaaliyeed oo ay sortaageen qaraxyadii caasimadda iyo gobolada ee lagu gumaadi jiray muwaadiniin aan waxba galabsan. war qaraxyadii faraha badnay oo muxuu ahay sheegay bulshada mar walba ku dhici jiray xaggay aadeen laakiin waxaan rabaa inaan halkan bulshada Soomaaliyeed kala wadaago sanadka aan soo dhaafnay runtii aan dareemi karno in nimanka nabadiidka ah muxuu ahay sheegay dhibaatooyinka ay shacabka u geysan jireen ay hoos u dhacday in taas bedelkeeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ay go'aansadeen meeshii bulshadooda dhiigoodu daada lahay in ayaga dhiigoodu